halkan waa jaamacadda simad xarunteeda magaalada muqdisho dhalinyaro is abaabulay oo la baxay ururka Green Watch Trust oo arrimaha deegaanka ka hadla ayaa halkan isugu yimid dhalinyaradu waxa ay maanta oo ah maalinta 15ka May oo maalinta dhalinyarada Soomaaliya ku astaysan ku doorteen halkan in ay dhalinyarada ka wacyigeliyaan waxyaabaha la xiriira deegaanka iyo sida loo ilaalin lahaa waxaa ila jooga oo halkan ku sugan injineer Cabdifataax oo gudoomiye ka ah Green Watch Trust Cabdifataax maxaad ku doorateen qaabkan inaad ku xustaan 15ka May runtii barnaamijkan maanta maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ugu magac darnay dhalinyarada iyo deegaanka falka noocan oo kale aan maanta sameynayno wuxuu si dhab u dhaxgali karaa bulshada inaan bulshada dhaxgalno oo ardaydii aan dhaxgalno aan siino wacyigelin iyo waxbarasho ku aadan deegaanka halkii lagu xusi lahaa in la isugu tago hoteelo ama lacag badan ay baxdo tan way ka qaras yartahay waana mid faa'iido u keeni karta bulshada jaamacadda simad maxaad ku xulateen inaad ardaydeeda ka bilowdaan oo aad la hadashaan runtii jaamacadda simad waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu weyn magaalada caana ku ah inay tahay jaamacad doog ah nadiif ah sidaas daraaddeed waa mid saaxiib la ah deegaanka sidaas ayaan u xulannay jaamacadaha kalena ee magaalada ku yaalna waa u tagi doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo aad u mahadsan tahay ardaydan intooda badan waxay yihiin arday wax ka barta muqdisho howlahan oo kalena waxay fuliyaan marka ay munaasabadaha yimaadaan waxaa ka mid ah sahre oo iyadana Green Watch Trust ka mid ah maxaad ku doorateen in ama saameyn sidee ah ay ku yeelan kartaa dhalinyarada wacyigelintan aad sameynaysaa saameyn wanaagsan ay ku yeelan kartaa li'annahu qofka markaad barto horta deegaanka wuxuu yahay iyo faa'iidadiisa iyo maxaa dhibaato ku ah uu kala fahmo qof meel ka dhaqaaqi karo noqon karaa marka wacyigelintu waxay ka muhiimsan tahay qofka markuu waxa ku dheela ama uu halay inaad wax u sheegi lahayd kahor inaad u sheegto waxaan waa dib waxaana waa faa'iido dhalinyarada ayaad si gooni ah ula hadashaan marka aad howlahan oo kale ku jirtaan wax ma ka bedelaysaa fikirka dhalinyarada ها waayo meeshii ummadda ka dhaqaaqdo waa dhalinyaradeeda qaasatan Soomaalida marka laga hadlaayo dadkooda markii saddex loo qaybiyo laba dhig waa dhalinyaro marka dhalinyarada wax u sheegto oo message-kaaga qaato wuxuu saameyn ku yeelan karaa kuwa kale oo dhalinyaro ah ummadana way sii wada gaarsiin kartaa inta hartay aad u mahadsan tahay maanta oo ah 15ka May maalinta SYL ayaa loo yaqaan Soomaaliya siyaabihii hore ee loo xusi jiray waxay ahayd in siyaasiyiintu ay ka hadlaan isla markaana laga sheekeeyo taariikhdii dhalinyaradii SYL balse qaabka ay dhalinyaradan doorteen waxa uu noqonayaa qaab ka duwan oo ku cusub sida ay dhalinyaradu ula falgalayaan isla markaana ay ugu dadaalayaan inay ka faa'iideystaan xuska maalintan cali nuur salaad BBC muqdisho